السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada janalka Sharm Sheikh. Kan waa cashirka shanaad ee barashada kombiyuutarka. Maanta waxaan baranaynaa sidee faylkaada xogta kugu jirta aad u xayd kari kartaa u qari kartaa. Waxaa dhici kara inaad tala laptopkaada aad u dhiibto saaxiibkaada adigana aan rabin inuu furo fayl. Sidee faylkaas aad u qari kartaa si aan lagaaga furin. haddana cashirkeena ayaa gudagalaynaa daawada haddaa janalka ku xubta subscribe noo saar haddii hore noola socotana like iyo share. haddana cashirkeena ayaa u gudagalaynaa haddii aad rabto inaad fayl aad hiding karayso waxaad tegaysaa file searchingka ama waxaad ka heli kartaa waxay dirtay saddex qayb ayaa ka raadi kartaa. haddii aad pin to start aad saaratay waa ka raadi kartaa. pin to start wuxuu yahay noo baran doonaa sida loo soo saarto iconada. qaybta waa ka heli kartaa haddii aad saaratay qaybtan oo ku jirta meesha uu qoran my computer ayuu dhigmaa. haddii aad intaasna aan ka helin waxaa qori kartaa file waa kana kadibna open ayaa leedahay. open markii aad dhahdo si aan xidhirtii waxaan rabnaa inaan qarino file oo saaran desktop. waxaad tegaysaa desktopka si aad u qariso kadibna waxaad dooranaysaa faylkii aad rabto inaad qariso kadibna right click ayaa ku leedahay. right click waa ku dhacdo waxaad xidhirtii haddii hoostan properties kaaga soo baxdo kombiyuutarada ayaa kala duwan. taasina waxaa ugu wacan xidhirtii versionka iyo windowga waa muhiimada ah. haddii inta properties ay kaga soo baxdo waa ku dhufan. haddii ku soo bixin show more option aad leedahay kadibna properties ay kasii dooranaysaa. kadibna haddii ku soo baxdo hiding ayaa leedahay apply okay ayaa leedahay kadibna okay. hadda kan wuu qarsan yahay waa hiding ayaa kaa saaran. tusaale qaybta ayuu ka maqayaa xidhirtii waxaad qorina sug math ayaa qorina waa kana. haddana waxaa sameynayna application hadda macnaha weli waa muuqdaa ma uu qarsano. haddii aad sama ka dhigi kartaa haddii aad qofka haddii application ka saaran yahay wuu kaga leexana. laakiin haddii aad rabto toos aad u wada qariso view ayaa tegaysaa kadibna waxaa leedahay show kadibna waxaa leedahay hide items. gabi ahaan inta ma laga helay maaska aad sheegay gabi ahaan inta ma laga helay maaska log aan ku maaska hiding gareenin hadda maaska folderka maaska hadda hiding gareenin inta ma laga arkay gabi ahaan inta waxa ku sheegay sidaas ayaa loo hiding gareeyaa. haddana sidii ay ku soo celi karnaa faylka hadda gabi ahaan asiga waa hiding gareen mugta sidii ay ku soo celi karnaa haddii aan u baahano. haddii aad rabto inaad soo celiso faylkii iska hiding gareysay waxaad tegaysaa view kadibna show ayaa ku dhufanaysaa kadibna hide items aad leedahay wuu kusoo muuqanaya maaska kana. kadibna right click ayaa ku leedahay. right click marka aad ku dhacdo more option kulley properties ayaa kasii tegaysaa kadibna hiding ayaa qaadaysaa apply ayaa leedahay okay waa kana maaska aad raadinayna desktop ayuu noo soo fulayaa. hadda faylkii aan hiding gareynay waxaa desktop ayaa ka helaynaa waa sug dib ugu baxno faylkii hadda hiding gareynin ayaa inta ka raadinayna waa kana waa kana faylkii aad hiding gareynayni waa kana desktop oo soo fulay. haddana tusaale haddana waxaa qarinaynaa xidhirtii maxaan qarinaynaa png sawir asiga ayaa qarinaynaa waa kana uu saaray okay. waxaa leedahay marka dhirta si aad u qoriso tusaale saan halkii aad rabto inaad qarisaa click aad leedahay right click ayaa ku sii leedahay kadibna marka right click aad ku dhacdo show more option aad leedahay properties ayaa kasii dooranaysaa hide ayaa leedahay apply okay sidaas ayuu kugu qarsan yahay. hadda weli wuu muuqdaa qofkii soo galo wuu arki karaa. si aad usii qariso waxaa leedahay view show hide items gabi ahaan kuma jiro. haddii aad rabto inaad soo celisana waxaa leedahay view ayaa taabanaysaa more option ayaa taabanaysaa hide items ayaa leedahay kadibna aaway png waa kana right click ayaa ku leedahay show more option ayaa leedahay
barbartaas ayaa kasii dooranaysaa hidna ayaa ka qaadaysaa apply okay ayaa leedahay. sidaas buu kaga qaaday desktop ayuu ku yaalaa waana kana. sidaas ayaa loo qariyaa haddii aad rabto inaad wax qarsato. waxaa inoo badan cashir xigo.